dad baan inaan soo dhexgalay hawaar qabe waxa qadka telefoonka ku jira waxa qadka telefoon ku jira wariyahayga magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud Tiigsade bal ka waran xaaladda guud waa sidee hadda أنا اسمي كوتي وسلام يا رمال عديق البحضة وكالة وركي كهنيوس يولي أصحابته ساكا أروليدي هوري كذا هوري سكور فديان إذا ماذا حقوق SSC يولي بقوا مام الجوات كسومالان دولان كقوا ديجان كه أيه وح نحمري دجال السكور ذيك سنة يهوكا نوعي سولس بالكورة ساكا هوكا يا بلعبي دجال كمر كورة ساكا dagaalka waxa soo bilaabay milishadka Soomaaliland oo jooga nugaasha kadib ciidamada tiigso halka ku celiyo khadka googaaye suxufi saaka dagaalka yaa bilaabay saaka sida caadada ahayd waxa dagaalka bilaabay cidii weerarka oo ah maamul goboleedka Soomaaliland isagoo duulaan ku magaalada Laascaanood dagaalku jooyay waxaan maqalnay hubabka noocyadiisa kala duwan ayaa la isdhaafsaday saaka bal ka waran saaka jooyinkee buu saaka maraafiicda uu ka bilaabay maraafiicda ka bilaabay hubabka maraafiicda tirada dheer ayaa la isku sidii labada dhinacba ciidamada xooggiisa ayaa difaacanayay magaaladooda area uu dagaalku ka dhacay waxa kamid ahaa jidaanta loo yaqaan isku dhoonka oo iyo waliba dhanka galbeedka iyo bariga magaalada hadda jawiga magaaladu hadda waa sidee jawiga magaaladu uu degan yahay balse gelinka hore maanta maraafiic aysan u meeldayin ayaa ku soo dhacay بس إلى هذا wax khasaaro oo nafa kama soo gaarin balse guryo dumay iyo khasaare waa jira tiigso halka ku soo celi bal hadda xaaladda ka waran xaaladdu waa sidee hadda xaaladda jawiga magaaladu kawto waa degan yahay balse saaka xilligii uu socday iska hormaadka jiidada hore ka dhacay ay milishadka Soomaaliland sidii caadi ahay markii looga adkaado fariimaha dagaalka ay maraafiic u soo qaybiyaan xaafadaha magaalada iyagoo u meeldiin maamulka Soomaaliland wuxuu ku dhawaaqayaa garaado macmal ayuu sameeynaya sida dadka deegaanka sidoo u arkaan garaadada la sameeynayo dadka deegaanku kawto ma aha dad hadda la baaraminayo balse waa dad soo jireen la isla markaana leh hidde iyo dhaqan waa gartay wax ummado kale soo guuriyeen kama shaqeynaya deegaanka dadkan waxay leeyihiin madax iyo isimo iyo saldana soo jireen waxaan ugu maqaalaa guryo badan baa saaka dumay oo deegaanka galbeedka magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ku yaala guryaha ka waran indhaha ma ku soo aragtay saaka saaka arooriyada hore waa jiraan guryo uu ku habsaday maraafiicda tirada dheer ay soo galayaan milishiyadka Soomaaliland aniga laftarkayga kawto kula hadlaya xaafadihii aan xalayto u hoyday qaar kamid ah waa ku dhacay oo xaafadda adigu laftiga deganeed marfac baa ku habsaday saaka xaafad aan wadaagnahay ayuu ku dhacay oo aan waxba noo jirin masaafadan ilaa 300 oo kiiloomitir noo jirto dadka deegaanka soo dareemayaan shucuurtooda waa sidee dagaalada laga hortagayo ciidamada Soomaaliland dadku ma u diyaarsan yihiin kawto dadkani waa u diyaarsan yihiin oo waxaad ka garanaysaa maamul sheeganayay inuu yahay isla markaan raadinayo itiraaf ka raadinayo caalamka in lagu ururiyay baqacada goojacade oo aan ognahay intii tahay iyo iskuwerkeedu intuu yahay dadka deegaanka waxay diyaar u yihiin siday horeba u soo difaaceen ilaa haddana waxay diyaar u yihiin in difaacdaan dadkooda iyo dalkooda iyo naftooda kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud Tiigsade oo naga soo wareeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waniga kowta ah sidaas iyo nabadgelyo ayaa saac wasku hagaajinaya soo qabanaya
ما تقانا ها والله